Anfield caawa ayaa lagu daawan doonaa mid ka mid ah kulamada ugu xisaabtan Premier League xilli ay wajahayaan kooxo ku jira xaalado kala duwan. City oo hardan ugu jirta soo qabashada Arsenal iyo Liverpool oo la tacaalaysa xaaladeedu soo bixitaanka Champions League iyadoo kooxda difaacanaysa tartanka. City oo ka mid ah kooxaha sanadihii ugu dambeeyay ku guuleysanaya koobkan ayaa mar kasta koox cadaadis ku sameeyay kooxaha tartan kula jira sida Arsenal. Kulankan sanadihii hore wuxuu ahaa Messi toos loogu loolamo horyaalka xilli ciyaareedkan miisaankiisu hoos ayuu uga dhacay sanadihii hore. Isbeddelka Liverpool iyo natiijooyinka City kooxda hogaamiye Pep wali waxay ku jiraan tartanka halka Arsenal ay u muuqato inay jebin karto loolanka labada koox tan iyo 2018. Liverpool waxay soo galayaan ciyaarta iyagoo helaya 2 guulood oo waaweyn ay ka soo gaareen Karabakh oo 6 gool ah iyo Newcastle 4 ku soo garaaceen. Reds waxay u baahan yihiin inay ku dhameystaan shanta sare ay u soo baxaan Champions League si ay uga soo qayb galaan tartamada Yurub. Anfield ayaa lagu ciyaari doonaa 7 qadar 30 daqiiqo. Garsoore Greg Bowson ayaa ciyaartan dhexdhexaadin doona. Rikoorkii iskoor imaadeen 5 kulan ee ugu dambeeyay kooxaha Liverpool 2 guul ay gaartay halka City 1 guul ay gaartay barbaro 2 jeer ay galeen. Kulankii ugu dambeeyay City 3 guul ay markaadka Liverpool 9 November 2020. guud ahaan labada kooxood waxay kulmeen 228 jeer tan iyo 1893. Liverpool ay baysay 110 kulan halka 58 ay ku dhamaadeen barbaro. Natiijada ugu badan waa gool 10 jeer ay galeen. City kaalinta labaad ay fadhiyaan halka Liverpool ay fadhiyaan booska lixaad. City ayaa ku badisay kulankii ugu dambeeyay 3 gool. Dhaawacyada kooxahan Liverpool, Jimmy Vardy, Joe Gomez, Leon Alexander Isak, Conor Bradley ayaa maqan. dhanka City waxaa dhaawacan oo shaki ku jira Ruben Dias, Doku, Gvardiol, Stones, Kovacic, Zavinho iyaguna waa dhaawac. labada kooxood ayaana dagaal adag u gali doona koox walba sidii ku helay 3 dhibcood ee muhiimada u leh kulanka. xilli City ay muhiim gooni u yahay kulanka maadaama Arsenal ay guul gaartay kulankii ugu dambeeyay la ciyaartay Sunderland ayna rabaan inay soo yareeyaan farqiga dhibcaha ee kala sareynta horyaalka Premier League. Tababaraha Manchester Carrick ayaa si weyn u amaanay kabtanka kooxda Bruno Fernandes kadib markii uu door mudan ka qaatay ciyaartii 2 gool ka adkaadeen Tottenham. Carrick ayaa sheegay Fernandes uu yahay ciyaaryahan si joogto ah uga soo dhex muuqda waqtiyada muhiimka ah ciyaarta. Bruno wuxuu mid joogteyn fiican ku leh mar walba wuxuu ku lug leeyahay daqiiqadaha waaweyn ayuu yiri Carrick. wuxuu inta ku daray wuxuu si dhab ah u daneeyaa kooxda iyo guushooda. wuxuu ku ciyaari karaa boosas kala duwan wuxuuna noo sameyn karaa farqi aad u weyn ayuu yiri. Fernandes ayaa haatan gaaray 6 gool 12 caawin kadib 22 kulan oo ciyaaray BL xilciyaareedkan isagoo sii xoojinaya doorkiisa hogaamineed ee Old Trafford. dhinaca kale xiriirka Chelsea John Terry ayaa si aad u dhaliilay Arsenal kadib markii si weyn u dabaaldegeen guusha ka gaareen Blues wareegga semi-finalka ee Carabao Cup. Arsenal ay ku adkaatay lugtii 2 gool ee barta oo ka dhigtay inuu gudbaan wareegga wadar ahaan 4-2. si kastaba Terry wuxuu ku adkaystay Chelsea ay ka fiicnaayeen Arsenal labadii kulan ee ugu dambeeyay. isagoo la hadlay muuqaal soo dhigay TikTok ayuu yiri labadii kulan sanadkan waan ka awood badnayn Arsenal aanan Carabao Cup marar badan ay ku guuleysanay wax cabsi ah maanan qabin. wuxuu inta ku daray in dabaaldegii Arsenal ay muujinaya cadaadis ka saaran kooxda hogaamiye Mikel Arteta. cadaadisku wuxuu u saarnaa Arsenal aad ay u dabaaldegeen aniga aragtidayda taa waxay muujinaysaa cadaadiska haatan ay la kulmayaan ayuu yiri John Terry. waxay u dabaaldegeen sida inay u soo baxeen Champions League ama ku guuleysteen kanina ma ahan koob xilligan sida lagu dabaaldegayo yiri John Terry.